Mareykanka ayaa awood ciidan oo la taaban karo ku leh Bariga Dhexe, waxayna ciidamo ka joogaan in ka badan 10 waddan, isagoo halkaasi keenay qalabkiisa militariga sida maraakiib iyo diyaarado dagaal. Sida la ogyahay, waxa uu Mareykanku saldhigyo ciidan ku leeyahay ugu yaraan 19 goobood oo Bariga Dhexe ah, waxaana xeryahaasi hadda ku sugan 40,000 oo askari oo ay ku jiraan dad rayid ah iyo sidoo kale nidaamyada difaaca hawada, diyaarado dagaal iyo maraakiib dagaal. Kadib weerarkii Mareykanku uu ku qaaday 3 xarumood oo nukliyeerka ah oo ku yaala Iiraan, saldhigyadan ayaa noqday bartilmaameedka ay Iiraan ka argoosanayso, waxayna weeraro ku ekeysay saldhigyada Mareykanka ee Qatar iyo Ciraaq. Weerarada Iiraan ee saldhigyadan ayaa cabsi ballaaran ku abuuray Mareykanka iyo dalalka Carabta, waxaana Trump uu ku qasbanaaday in la dhaqan geliyo xabad joojin maadaama xukuumadda Islaamiga ee Iiraan ay ka dhabaysay hadalkeedii ahaa inay jawaab ka bixinayso weerar walba oo Mareykanka uga yimaada. Sida ay xoguhu sheegayaan, joogitaankii Mareykanka ee gobolka ee dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan oo gaaray in ka badan 160,000 oo askari oo Mareykan ah, waxaa sanadkii hore la xoojiyay tiradaasi sababo la xiriira xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Iiraan. Tirada ayaa sidoo kale loo kordhiyay jawaab celinta weerarada joogtada ah ee Xuutiyiinta Yemen ay ku qaadayaan maraakiibta ganacsiga iyo kuwa militariga ee ku sugan Badda Cas. Waqtigan Mareykanku waxa uu Bariga Dhexe ku leeyahay saldhigyo militari kuwaas oo tiradooda lagu sheegay 19 goobood oo gobolka ah, hase ahaatee 8 ka mid ah ayaa loo arkaa inay joogto yihiin, waxaana saldhigyada muhiimka ay ku kala yaalaan dalalkan kala ah Bahrayn, Masar, Ciraaq, Israa'iil, Urdun, Kuwait, Qatar, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Suuriya. Sida laga soo xigtay kooxda cilmi baarista madaxa bannaan ee Golaha Xiriirka Dibadda, militariga Mareykanka ayaa sidoo kale ka howlgala saldhigyo waaweyn oo ku yaala Djibouti iyo Turkiga, kuwaas oo qayb ka ah talisyada gobolka, waana kuwa inta badan gacan weyn ka geysta howlgallada Mareykanka uu ka fuliyo Bariga Dhexe. Haddaba waa kuwan liiska saldhigyada waaweyn ee uu Mareykanku ku leeyahay gobolka, kuwaas oo dhammaantood hoos yimaada taliska dhexe ee Mareykanka ee loo yaqaano CENTCOM. Haddii aynu ku horeyno saldhigga Mareykanka ee Bahrayn, boqortooyada yar ee Bahrayn waxay hooy u tahay kooxda shanaad ee ciidamada Mareykanka oo mas'uul ka ah ciidamada badda ee gacanka Faris, Badda Cas, Badda Carabta iyo xeebta Bariga Afrika ee koonfurta ilaa Kenya. Saldhiggan waxaa loo yaqaanaa hawsha taageerada badda ee Bahrayn, waxaana sidoo kale ku dhex taal xarunta dhexe ee ciidanka badda Mareykanka. Inta la ogyahay, waxaa saldhiggan ku sugan ilaa 9,000 oo askari oo Mareykan ah. Sidoo kale maraakiib dhowr ah oo ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka ayaa saldhigyo ku leh dekedda Bahrayn, kuwaas oo leh biyo qoto dheer oo qaadi kara maraakiibta badda hoosteeda mara sida US Carl Vinson iyo kuwo kale oo xambaara diyaaradaha. Waxaa kale oo ka mid ah 4 markab oo miinasaar ah iyo 2 markab oo bixiya taageero dhanka saadka ah. Dalka Kuwait ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee saldhigyada ciidamada Mareykanku ku leeyahay gobolka, waxaana saldhigyadaasi ka mid ah Camp Arifjan oo ay ku taal xarunta ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ee qaybta CENTCOM. Xaruntan waxay u adeegtaa sidii xarun howlgal oo saadka ka taageerta ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe, waxaana yaala sahay badan oo lagu taageerayo howlgallada kala duwan. Waxaa kale oo jira saldhigga hawada ee Ali Al Salim oo ay taal Airlift Wing, waana xarun weyn oo laga fulin karo daabulidda ciidamada dagaalka si loogu biiriyo ciidamada isbahaysiga ee gobolka. Mareykanka sidoo kale Kuwait waxa u yaala diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ku jiraan MQ-9, saldhigga ciidamada cirka ee Camp Arifjan iyo saldhigga Ali Al Salim oo kaliya ayay Mareykanku geeyeen 13,500 oo askari, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Saldhigga ciidamada cirka ee Al Udeyd oo isna ku yaala Qatar ayaa ah kan ugu weyn gobolka, waxaana saldhiggu u yahay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM iyo ciidamada cirka ee dalkaasi. Al Udeyd ayaa horey gacan weyn uga geystay howlgallada ciidamada Mareykanka ee Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan. Ciidanka cirka ee Mareykanka gaar ahaan guutada 379 ayaa sidoo kale la geeyay saldhiggaasi. Madaxweyne Donald Trump ayaa booqday xeradan 15kii May intii lagu guda jiray socdaalkiisa Bariga Dhexe, waxaana saldhiggan ku sugan ku dhowaad 10,000 oo askari oo Mareykan ah. Sidoo kale militariga Mareykanka ayaa ka howlgala saldhigga hawada ee Al Dhafra ee Imaaraadka Carabta oo ah xarun istiraatiiji oo qaabilsan sahminta, xog ururinta isla markaana taageerta howlgallada hawada. Saldhiggan ayaa hooy u ah guutada 380aad ee cirbixiyanada, waana ciidamo u badan kuwa cirka oo haysta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Mareykanka ilaa 160,000 oo askari ayaa ka joogay dalka Ciraaq, wuxuuna ku lahaa in ka badan 500 oo saldhig intii uu socday duulaankii lagu riday Saddam Hussein, kaas oo jiitamayay sanadihii 2001 ilaa 2003. Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda dalkaasi ku sugan 2,500 oo askari oo Mareykan ah, waxaana Washington ay wadahadal kula jirtaa xukuumadda Baghdad si ay si tartiib ah ugula baxdo ciidamadaasi. Askartan ayaa qayb ka ah isbahaysiga caalamiga ah ee dagaalka kula jira kooxda dowladda Islaamiga ee jihadoonka, waxayna inta badan ka howlgalaan 2 saldhig oo ciidamada cirka ah oo kala ah Al Asad iyo Erbil oo gudaha Ciraaq ku yaala.
si kastaba Mareykanka uu cabsanaya saldhigyada uu ku leeyahay bariga dhexe iyo ciidamada ka jooga halkaasi ayaa waqtigan xabad joojin dhex dhigay Iiraan iyo Israa'iil, waxaana haddii ay dirirtu dib u bilaabato weeraro culus la kulmi kara dhammaan saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe, taas oo ah halista uu ka fogaanayo Mareykanka.